nabad aan ugu soo celiyay sida dhammaantiin socotaan waxaan ka nimid dalka Uganda oo aan uga qayb galnay shir ay lahaayeen madaxda dawladaha ciidamada AMISOM iyo ciidamada kale ee Soomaaliya kaalmeynaya ee jooga madaxdooda ay ka soo qayb gashay shirkaas waxa aad iyo aad looga hadlayay sidii saddex qodob oo ugu muhiimsanaaday oo ahayday sidii loo xoojin lahaa ciidanka amniga ee Soomaaliya iyo dhismihiisa kor loogu qaadi lahaa iyo sidii dawladda Soomaaliya looga kaalmeyn lahaa dalka dhamaantiis inay meel dhinac walba dalka ka tirsan maamulka iyo xukunka dawladda sidii uu u gaari lahaa iyo qodobka saddexaad oo ahay wada tashi guud ee maadaama hadda Soomaaliya ay marxalad ka soo gudubtay marxalad kale u gudbayso sida hore loogu sii wada soconayo loo wada shaqeynayo oo shaqada loo wada hagaajinayo qorshahaas marka saddex qodob ugu muhiimsanay aad iyo aad ayaa saddexda si dhab ah looga wada hadlay waana lagu guuleystay siyaabaha aad ku aragteen communique soo baxay ayaana arrimaha amniga iyo arrimaha ku raadayay dalka dib u haarashadiisa iyo arrimaha dhismaha ciidanka amniga iyo wixii si aad u qoto dheer ayaa looga hadlay aad iyo aad shir u fiican oo iyaha Soomaaliya uu wanaagsanaa guud ahaanteed si khaas ah waxaa looga hadlay gobolada Jubbooyinka iyo infrastructure-ka ama ku raadayay hay'adaha iyo qalabka dawladdu ay leedahay meesha ku yaala dawladda Soomaaliya gacanteeda soo wareegi lahaa waa arrin kale oo aad iyo aad u fiican waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno guud ahaantood waxa soo guuraa way soo wada hoydeen wax cid Soomaali ah ama qayb Soomaaliya ka mid ah dib ugu jiraan haba yaraatee ma jirto masaalixda iyo wanaaga iyo horumarka ka yimaadana dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayay wada gaarayaan si gaar ah waxaan rabaa inaan u xuso markaa dadka Soomaaliyeed ee degan gobolada Jubbooyinka heshiiskaas iyo shirka wixii ka soo baxay waa maslaxadda guud ee Soomaaliya maslaxad khaas ana waxay ugu sii jirtaa waliba dadka Jubbooyinka degan oo heshiiskaasi uu tilmaamaya oo siinayana ayaguna dawladda Soomaaliya sidii awood buuxda u siin lahayd dadkaasi in ay ka faa'iideystaan infrastructure-ka meeshaas ku yaalaay si dhab ay uga faa'iideystaan oo dadka dhan ay wada gaaraan taladooda iyo ra'yigooda iyo rabitaankooda ayaana lagu maamuli doonaa wax ku raadaya ama dad masaalix ku qabay laga qaaday oo ama kuwa kala la siiyay ama la kala waxay midna ma ahan arinta maamulka dhisidiisa iyo sameyntiisa haday tahay nabad soo celinta haday tahay maamulida ilaha dhaqaale iyo ilaha ku raad dawladeed haday tahay dhammaantood waa arin u taala talada dadka deegaanka codkooda iyo sida ayagu ay u jecel yihiin in loogu maamulo ama loogu hayo ayaa loogu hayn doonaa ama sida ay u jecel yihiin in ay ayagu u hantaan oo ay masaalixda iyo wanaaga ka imaanayo dadkooda iyo dadka deegaanadaas degan oo dhan iyo Soomaali guud ahaan looga wada faa'iideyn karo waa arin wada tashi iyo mar walba wada hadal ku salaysan oo dawladda Soomaalidana mabaadideedu guud bay tahay dadka Soomaalida in la tashado waxa ay doonayaan iyo waxa ay diidan yihiin intaba aad iyo aad loo tixgeliyo inta uu baanan yeeli doonaa marka dacaayadaha iyo wararka ku raadayay aan haboonayn macna ma sameynayaan mashaakilkeena dibadda hadda ma jiro dalka gudihiisu jira dadkeenu jira dawladuna waxay horseed ugu tahay rabitaanka dadka tixgelinta iyo karaamadooda iyo awoodsiintooda qof Soomaali ah oo la xaqirayo la diidan yahay la neceb yahay midna ma jiro dadka Soomaalida waa dad muxtarimiina waa dad xaq u leh dadkan waa dad intay soo dhibtoon kareen soo dhibtooday maanta dhibaato kale uma noqoto dawladuna mar walba waxay mas'uul ka tahay dhibaato jirta sidii loo dhimi lahaa oo loo yareyn lahaa oo loo baabi'in lahaa mid cusub in la abuuro ama koox cusub laga xanaajiyo maaha hore ka soo xanaaqsan inaan soo maslaxno danta Soomaaliya iyo dantooda intaba aan ku soo maslaxno way marka waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed hambalyo waxa dhacay waa guul idin soo korortay hanashadeeda iyo hogaaminteeda iyo saxideedana idinka idin taala ayaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh